ama sida galayrka u duul ama sida guulaha u kiis. qof walba halkuu gaari karo iyo hankuu goosan karo. xayawaan walba subaxii wuxuu jarmaadaa boggiisoo laalan, galabkiina wuxuu soo carraabaa calooshiisoo buuxda. wax ma tashiisho, marana ma tasho, balse tala saarashada Eebbe kolnama kama tago. si aan wax uga baranno nolosha deggan ee noolaha nagu gadaaman, maanta waxaan soo qaadanaynaa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda, aragtida iyo aamuska badan. waxaan u dhabagelaynaa haadda loo yaqaan galayr. si aan ula xiriirino nolosheenna, waxaan isku dayaynaa inaan soo xulno waxyaabaha uu uga duwan yahay noolaha kale, balse isbarbardhigga adaan kuu daayay maadaama aan dadkoo dhan hal doon la wada saari karin. waxaa jirta oraah dhahda, haddaad rabto inaad bah galayr ku biirto, wakhtigaaga ha ku dhumin digaag. sida ku cad murtidan, digaag iyo galayr walow magaca haad la wadaajin karo, haddana wax kala soocaa jiree, bal dhegta u dhig yarana dhuux halkuu galayr bustaha dhigtay. muuqaalkan waxaan ku soo koobayaa 7 tab ee saamaynta badan ee galayrku tusmaystay. adna ugu yaraan tabaabulshana ha ku gelisee wax badan kuu taraysa haddaad noloshaada ku dhistid. tabta koowaad, kelinnimo. galayrku weligiis wuxuu kelidiisa haabaa daruuraha sare, mana dhacdo inuu tukayaasha ama haadda kale mar uun la duulo. maadaama aysan isku han iyo himilo ahayn, galayrku waxaa moodaa inuu leeyahay kuwa aanan isku garaadka ahayn. isku geedi ma noqon karno, waayo waan kala ujeeddo fognahay. suurtagalna maahan adoo bari u socda inaad bugux u hayaantid. waxaa jirta mahmaah Soomaaliyeed oo dhahda, shimbirba shimbirkiisa ayuu la duulaa, oo micnaheedu yahay intii isku jin, isku jid iyo isku jiho ah ayaa isfahmi karta. tabta labaad, aragti dheeri. awoodigan waa noole aragti dheer. wuxuu wax ka arki karaa meel jirta 5 kiiloomitir, asigoo weliba jawiga dhexe ee hawada damaashaadaya, mana ka libqo shaygu qabso damco. tani waxay tusacad u tahay sida halkuu maagan yahay ugu muuqato. annaguna waxaan ka baran karnaa hankaagu yaysan kaa mashquulin waxyaabaha yaryar. weligaana indhaha ku hay oo u dhaqaaq ilaa aad ka dhabayso, sababtoo ah ma jiro wax qof bini'aadam ahi ku fakari karo, hadduu jirana wuu ka salgaari karaa. tabta saddexaad, cabsi la'aan. galayrku ma cabsado, mana u hanjabo taagta iyo awoodda ugaartiisa. mar walba damiciisa iyo dagaalkiisu waa wada jir, waayo wuxuu aaminsan yahay wixii hunguri ka galaba inuu heli karo. sidaas oo kale dhib ma leh halkaad u socoto intay jirto, maadaama dad kaa horreeyey gaareen, waa hubaal adna inaad gaari karto. laakiinse dheef lama gaari karo dhidid la'aan. haddii la gaarana wax qiimo ah kuma yeelanayso waxyaabaha aadan u dhabar jabin. 90% waxaad ogaataa waxa laga cabsadaa waa wax aan la arag, sal iyo baar toona lahayn. tabta afraad, mayal adayg. galayrku wuxuu qabsada wuu qaatay. hadduu galayrku wax ku dhago ama ku dhimay ama dheefsay, dhan kale inuu uga dhaqaaqo waa habeenkii xalay ahaayo tagay. galayrku wuxuu jecel yahay dabaylaha, wuxuuna aaminsan yahay markay dabayli soo dhacdo inay daruuraha dhaafsinayso. wuxuu ku diirsadaa naacawdeeda, waxayna dabayshu ka kormarisaa daruuraha dhowdhow oo dhan. isna wuxuu nabtaa baalasha, wuxuuna u heehaabaa sida hade kor loo tuuray oo kale. maadaama ay tani siinayso waqti uu ku nasto, tan micnaheedu waa dadka guulaysta. guuldarradu waa u baritaare, kolka awooddu daciifto maanka u diirsha. tabta shanaad, galayrku bakhti baahi uma cuno. galayrku bakhtiga baahi darteed iyo la'aanteed midna uma cuno. wuxuu cunaa ugaartuu cidiyihiisa ku qabsado. tani waxay la macno tahay waxqabadkii tegay ha dul saarnaanin, waayo shalay waa dhacdo mudan in la xasuusto, laakiin aan lagu xisaabtamin. iska halmaan waxaad wanaag samaysay, weligaana xusuusnow khaladaadkii kaa dhacay, sababtoo ah casharrada noloshu waa cibaarooyin tilmaamaya hadday dhaceenba inay soo laaban karaan. markaas haddaan casharkii la xasuusan, say cilada loo saaraya? jawaabtu waa sina.
tabta lixaad isbeddel joogto ah. Galeerku baalasha iyo tunka ayuu iska rifaa, isagoo uga dan leh dhiirigelinta ubadkiisa iyo korinta damaca qotada fog ee nolosha uu ka leeyahay. Buulkiisana iskuma koobee, kolkuu daal dareemo deegaankiisuu ka durkaa, isagoo mooda inuu leeyahay halkii aad ku daashay maxaa kugu daahshay. Markaad taag daraysid damaca koriyo samada uga duul. Tabta toddobaad dib u dhalasho. Galeerku kolkuu weynaado uuna dareemo in baalashiisu daciifeen, duulitaankii dheeraana uu tahli waayo, wuxuu tagaa kob ka durugsan dhulka sida buuraha dhakadooda. Kolkaasna wuxuu iska dhilaa dhammaan baalashiisa, guntuuna ka rifaa ilaa uu iska murxiyo, jir mooyee oga kalena iskuma soo reebo. Dabadeed halkaas ayuu joogaa ilaa baalal cusub uga soo baxayaan. Markay baalal cusub u soo baxaan ayuu soo noqdaa, isagoo weliba u duuli kara si ka wanaagsan kana casrisan sidii noloshiisa hore. Tanina waxayna tusaysaa in wax walba ay qiimo ku leeyihiin noloshan, markay xumaadaanna aan bedeli karno. Haddii shaqo, gaari ama deegaankuba kugu xumaadaan, 5 geedi ka guur, ileen geed ma tihide. Dabadeedna markaad isbeddel gaadho, dhulkaagii baa kuu baahan u guryo noqo. Ugu dambayntii waxaan leeyahay, gadgadoonka waayuhu hadba gibil isdhigayaan, deegaankii salka u galay dadkuna uu la geediyey. Maxaa aniga iga gaday? Maxaa geedka igu xidhay? maan gees ka raaco hadba meesha loo gudo sahan loogu dawgalo geediga ku soo furo. Salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.